بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دوادا تلفزيونka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo markale barnaamijkeennii halabuurka daawadayaal habeenkan caawa waxa barnaamijkaasi martii inagu abwaan Maxamed Xuseen oo ku magac dheer abwaan Toosiye abwaankani waa mid kamid ah dhalinyarada ku abtirsata dhinaca fanka ee ka soo jeeda gobolka Saraar abwaan Toosiye ku soo dhaw marka hore barnaamijka halabuurka ee dhalinyarada TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ودوهيان شعب عداء أديات بانا نيدين كان بحد عليه كلانتدان أنه برنامج كان نقول كلوني وأنا دي سودويني أبدا ما سنتي أبوان رنتي داودي أنت إن برنامج كان كوكو ذكرنا وحنا هالكن أنه كذا قبض أن أبوان كان كبيو يمانسوين كلا دوان أو كثيري لنا عيا بدن كبيو دي سين تبدن أبوان كانوا حياة تعبنا يان قارن عودني ده تعبنا يا كبيو كسابسان horumarka bulshada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wada noolaanshaha ummadan sidoo kale qaar baa taabanaya sidii ixtiraafka ay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala dambeeyay ay uga howlgaleen sidoo kale gabayadiisa qaar waxay taabanayaan iyo adkeynteeda iyo sidoo kale dhaqanka ka dhaxeeya bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland أول مرة هراء بروح فهنا قصيصة تاريخ هذا يوقتي أطفال كعاد بلودي. أنا تاريخ هذا واحد بدن توحنا وحليه سوغانتو وح لحلا معها وقتي لغة معها وحلا يسمى هيرا معها. ووح دريانه كواب وران قفك. أنا ولا يران تيجي هلا بورك وان لها. لكن واحد بدن ما ندقن قلين. إلى يرانتي حلي بدنا أصلي هدر وتكهلا بور بدنا بجرته لكن واحد يقول إلى الله بدأ كن أيه وجوه رئيس حلي أصله بلدك حقوق فيدي أبو لماذا أما ملا أورانك لو هريدتي أو أب يأصل بعض الهاد مساء أدقون بام حياته ولا أبها يأوجا يمجي بيشرين مساء أدقون بين تبدان هدر حياته لك ولا تابوا نضي ها هيرك يوقفان قبيم بمله رجيو الدمر قفان وحسوها جاتين ماله سرنتي تاريخ هر موسى شماني أنا جوحو إياها مركن ودين عاجنو إياها أووي سدحات مركا إلى أضيعاس قفقان نكقان قاري ريرك كم بدأ ميدا ما قبيدي وحكانا ما ميدا قبيم بالله أي ليرها حنا مغلي قبيدا قار كمديهين قبيدا أصل أكله أو كشكاني وأنا وعشها مدة جمهورية الصوماليلاند بل قبيدا سمريه سا وحنا قطعوا horta marka hore hadafkaygu rag badan baa isku daya iminka suugaanta ama horeba marka hore qiimo lahaan jirtay marka horta aniga geedi socodkaygu waa laba mas'alo dhaqankii iyo hidihii dadkan lahaa in aan ka hadlo barnaamijkaygu waxa kale uu daaran yahay waxa la yiraahdo wadaniyada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland la soo noqoshadeeda caalamka iyo sida ay gooni isu taageeda iyo horumarkeeda iyo wadanimada ay ugu adag tahay sida ay muqaddis ay u tahay taasoo jaamacu aan oran karo cid qudhaha garanaysaaba wadadkan inagu umka u yaryarnahay oo u baahan wax badan dadka in laga dhaadhiciyo la geedigeliyo hadan u soo noqdo gabayga asal wuxuu ka sheekeynayaa cid ka soo qolna way fahmi doontaa markaan tiriyo tixtan asal baa la yiraahdaa وماسو waxay ka sheekeynaysaa qaraabadii wada noolaashihii ehelnimadii sidii la isu ilaashan jiray xeerarkii wixii jiri jiray xidhiidhadii taasoo aad muddo dhaqankii aynu lahayn inuu meesha ka sii baxayo sida marba qodob looga tagayo waxa kale oo ay muujinaysaa qodob kasta oo meesha ka baxa in xal dadkani lahaa oo ku wada noolaan jiray wax ku qaybsan jiray oo la isku afgaran jiray uu meesha ka baxayo taasoo aad moodo waxyaalihii marka laga tago inaan xalba iminka maanta waxyaala xalka loo leeyahay inay xambaarsan tahay lafteed marka nimanka bilaabo tixdan waxa la asal waxbay arkayaan indhuhu hadana uurkaygu tabi ismaandhaafkii waqtigan dhibkii asraarka jira amuur weeyaan la fila adduunkaba waxa lure abaara istaba socday dhibtii aafada ka riday dadkii wax maqmiinay markay xangoysnoodeen ilaa qaraabadii iyo casabadii la ambiyo dadkoo riximkii inkiray أنا رحم كيو عصبادي وحلا برجر الحيرين تري ودين تنو شيء يسون رحم كي عصباد الحيريو مركا أدمان تمودين خدك كسي بحيان تذكر رحم كي إنكري
qabyaaladu waa alhumo waxay asaloorisaa indhaha cid kaga shubtaa obsodna waxay ku tahay intii ehelkaba ahayd intii lagu eeran jiray intii la aabaysan jiray markuu arrinkaasi yahay intii loo ooyi jiray bal intaasaynu doonaynaa dadka inta nabarka qabyaaladu waa dilaawe saynu fahansannahay nabar bay leedahay bal nabarku meeshuu ku dhacayo iyo cidda ku aadan yahay hadday dadku fahmayaan ay bulshadu fahmayso qabyaaladu wax la iska daayaabay noqon lahayd waana arrimo u baahan dadka in laga wacyigeliyo qabyaaladu waxay leedahay awrkaasi waa awr shaydaan awrka iminka loo adeegsaday qabyaaladu adeegsatay waa ninka ilmaadeerka la yidhahdo ilmaadeerku iminka halka qabyaalada kaga jirto wuxuu noqon awrka waayo dadka intii kale waa laga tegey dadkaasina markaa tilmaamayna intii lagu eeran jiray intaasaynu doonaynaa inaanu markaa sharxno awoowiyo waa ayey abtiyo waa eedada in abtiyo habar wadaag ab iyo oor iyo walaal intii kale oo la mid ah inta ninka goynayfkana ixtiraan mala waxay axaadiistiiyo sharciga sidii eebayna faray amaan asalka u lahayn intaa ninka goynaya ifkana ixtiraan ma laha godkiisa aakhirana ammaan wacan uma talda waayo raxingooska waa tii hore la sheeg waa dadka iminkaas haysta ee isdilaya ee iscunaya ee meesha ku wada nool waa dadkaas ayay arrintan qusaysaa oo ay baaq iyo fariin u tahay cid kastoo ay qusayso arrintan bariga iminka waynu ka warhaynaa dadkaasi wuxuu ka mid yahay dadka aan la hadlayo ayuu ka mid yahay waxayna fariin u tahay cid kasta oo lamid ah arrintaas qusayso abkeennii maxaa bedelay maxaa dhaqankii afroyo amuurtu xaggay ka timi dadkabaa oday tala qabo aaraahda ku meel marshiyo abwaan hal abuuraya intay wax u sheegayeen dadkuba ehel buu lahaa dhammaan anshax buu lahaa iskaashi cad buu lahaa adduun jiratuu lahaa haddana ilbax buu lahaa aqoon durugtuu lahaa u loo raacuu lahaa amuura hadday dhacaan aleen wariyuu lahaa dhambaal orda buu lahaa dhul lagu eertuu lahaa xal soo afjarmuu lahaa axdiga cid gashuu lahaa nin aamina buu lahaa maanta axdigii dee waana la dhaaranayaa ka loo dhaartaana ma aaminayo ka dhaaranayaana waxa weeye ka dhabayn maayo uma fulinayo axdiga cid gashuu lahaa dad aamina buu lahaa asool nin galuu lahaa abaal nin guduu lahaa ilaashi dambuu lahaa markaad arrimaha socdiyo axwaasha u fiirsataan dhab weeyaan akhrisamin aftolooyin loogu baxay waayo waxaas dhan waa laga dhaqa aftolooyinka waxa la meesha farantaa markaad degmada dhaafto qoorta u baxdo meesha cadowga mooyo cid kale ka xigin marka akhrisaminkii waxaad moodaa inaynu farantii taaganahay akhrisaminka haddaan agabkii la qubay dib loo soo ururinayn haddaan alla laga baqayn asxaan lagu eeranayn habaashiina robo god akhrisamaanayo ubayn dul taaganahay intaasaan doon inaan ka gaadho gabaygaasi aada buu qiimo u lahaa kaasoo taabanaya noolaanshaha bulshada iyo sidoo kale dhaqankii hore ee bulshada iyo sida haddeer bulshada uga sii guurayso islamarkaasina ay u dayacday dhammaanba dhaqankii kala duwanaa ee bulshadana ay wada lahayd runtii abwaan gabaygaa haddaynu halkaas kaga soo gudubno waxaa jiray gabay kaloo la dhaho tasleex gabaygaa tasleexa waxaad kaga hadashay isagana nabadda iyo sida loo baahanyay bulshada ku dhaqan somalilan in nabad ku wada noolaato sidoo kale waxaan filayaa inay dhacdooyinkii u dambeeyey ee beelihii ku dagaalamay iyagana darar weyne iyagana aad maxay ahayd toolay aad wax kaga soo dartay oo aad baaqyo aad u darayso inay nabadda ka wada noolaadaan ay ku jirto bal gabaygaasi waxyaabahaad ku culisay iyo midhihiisana isagana bal halkan nooga tiri waxaan leeyahay beelahana darar weyne arrimahan ugu dambeeyey arrimaha aada looga xumaada bay ka mid tahay waa arrimaha ay u kalifay suugaantan iyo barnaamijkan maanta qabano waa wacyigelin cid kastay qusaysana way u taallaa waa afkii iyo hiddii aynu lahayn iyo karaamadii xagga suugaantana dadkeenu waxaa dadkii taariikhda ku lahaa haddaynu nahay soomaaliya waa hooyada fankaa la yidhaahdaa waxaan leeyahay qabyaaladu waa cabeeb cad weeyaanaan bislayn barhkiisuna ceedhi yahay qalbiga waa cudur ku dhaca cillado weeyaan qarsoon cambaar weeyaan qatara haddaan caqligaabka iyo carruurtii iyo maantadii iyo ciyaalkaba laga daweyn coqaashu haddaanay socon haddaan codkorku isu tegin cirooluhu sama ka talin tasleexa cid loo samayn waa booska bannaan maanta adduunkeenna camiran miyaa laga ceeshaya casuumadda eebahee nibcada carrigeenna taal miya caafimaad qabiga cayaar lagu daqaya qabyaaladu waa cunsuri caqabad aadniga hor taal shaydaankaa ciidansada
ibliiska colkiisa iyo cadaabkay wehelu tahay caqiidada eebbe iyo caqliga saxabow dawa ah haddaan culimadu ducayn dhammaan cashar saydhinayn culunta ku tamarucayn tasliixa cid loo samayn adduunkeena camiran miyaa laga ceeshayaa casuumadda eebbaheen nafcad carrigeena tal miyaa caafimaad qab iyo cayaar lagu daaqaya taasina waa tasliix abwaan aad baad u mahadsantahay runtii gabayo qiimale oo nabadda iyo horumarka iyo wada noolaanshaha bulshada ku saabsan ayaad halkan nooga marisay runtii abwaanku sidoo kale waxa uu tiriyey gabayo ku saabsan ictiraaf raadinta iyo sidii xukuumadii kala dambeeyay dalkan iyo ictiraafka u dooneen bal gabayga ictiraafka isagana noo biyaamay iyo weliba waxyaabahaad ka tirisay tixdan dareen celis iyo ictiraaf raadis labadaba waa la yidhaahdaa waa 2012 sanadkii labaad intuu Silaanya dalka qabsaday xilli waddanka inuu dhaqaaqay oo dardar iyo waxqabad ku socday bal xagga 18 May iyo arrimihii gooniisu taagayo xuskiina la dardar galiyay marka saraar 18 May lagu dabaaldegay bay marka tartan bay ahayd adigu ilaa 4 hawaan baan kaga qayb galay marka dhinacyo badan bay taabanaysay bal sidaynu xula soo noqonay calankii xilligu inaga lumay halka maanta aynu marayno xilliga la marayay ictiraafka halku marayay waana sidan suugaantu mid dareenkii dahrigaaga ku taaliya mid daydayda maalmee markuu gaadho da'diisa ay shinkiisu dilaacaad ibnahaygu qabtaan bal afrans dul taago dareenkii 60 xorrimadaynu ku doodnay daayinkay ina siiyeen u dabaaldegnay maalmo dareenkii 60kii waa tiyaan la ilduufnay ummadaynan isku dan iyo isku dawba ahayn oo dubka aadniga saaran iyo diirka aanu wadaagno koonfuraan ula doole dusha aynu ka saaray markii aynu dakaanadaad ku ina qaadina dib u soo noqonna ومالنتي دنيانا سوماليلاند بدلكيدا calankeena ah dooga dilintii marcasidii cadaankii nabadoonkii tawxiid kala dul saaray dafurkiisa haatee dunidaan kula ciid wala soo noqoshadii iyo ku dhawaaqistii jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhawaaqay gobolka Togdheer wixii aanu dagaalka duurka waaya ku raagnay ragba doorkii la waayo dabaabaadka gurguurta diyaarada wax rusheeya madaafiic wax duqaysa axmaqii dalbanay hadbadaan isu taagay wadaadadiin fidinayay da'yartii lagu laayay wixii qoondami doonay ku ducaysta ayaama samada daalacanayso degdeg baa loo aqbalay mar labaad dalabkeeni daayin bayna siiyo reeriyada iska dulqaadnay mooriyaan degdeg sida dayday dadkaygu isma uu daba yaaceen dastuurka la daleeyo degsan baa la sameeyo odayaa ku dardaarmo culima ku ducaysay naafadi la daway agoontii la daryeel doogtiina waa la bogsiyey afartana dareen iyo dib soo noqodkii dheh halla waa ka dambeeya doorka aynu maraynana dunideenu barwaaqiyo nabad bay ku dambayso madaxweyne dadaal leh dawlad xeer ku shaqeysa shacabkeeda daryeesha doorashaad ku hesheeno daayin bayna siiyo hadda dawiya laami dakadii la bineeyo degdeg loo dhisaya macal wadada oo uu Silaanya ku darsaday markii hore ballanqaadadiisii oo markii ay bilaabatay sida xawliga macal wadada isku xiriga iyo Togdheer ay bilaabantay midab la xidhiga lahaa wartalo sidan waxaan masuuro galayaan laakiin si Himaalidu dee u dhabowday iyadoo ilaa maantii goonsiga Soomaaliland lagu dhawaaqay ilaa maanta aan joogno maalin walba ay talaabadu ay kor u sii socoto wax Ilaahay mahad ku gaadhay taasoo u baahan dadka deen la fahansiyo la af baynu lahayn afkiida wax la isku fahansiyo hada dawiya la mid ka yeelay dadka la dhisaya ninkii daar dhisanaya dibadkii qabanaya kii dilaan noqonaya kii wax soo dejinaya dalakii falanaya nin kasta dantiisa wuxuu diiday lahayn baa loo diyaar yahay maanta halkoo dadalaayo dadku naawilayeen waa la gaaray dantiisa ictiraafka la doon sida dooyaha roobka cirkoo diismaagay dabeela galbinaya xusbiyada dunida si Labour-ka dalab geeyo Sheffield daawatay oo markii Sheffield koob ka tirsan Ingiriiska oo ictiraafay Soomaaliland hal ictiraaf xusbiyada dunida si Labour-ka dalab geeyo Sheffield daawatay Ingiriis kama doodin Mareykanka ma difaacin Shiinaha wax ma diidin Jarmalka wax dareysan Russia la diyaara xaqii dildilaaciyo tukriga duutiga jooji Arabada damanida iyana daacad ahaatay hadda duurka dabaysa Afrika waa dumada Afrika dawaynu ku xeeran tahay wax la yiraahdo jirimo ka abaal wada Afrika Afrika waxaan leenahay hadda duurka dabaysa Afrika waa dumadaada
koonfureynana daa sida diibka wax laayiyo bahal daalin ahaaday idinkaas wada diirto tiini baa dar la-aan oo isku dawo ma hayne dee koonfureynana daa aada u mahadsantahay abwaan gabaygaasi gabay qeyro leh oo runtii qiimihiisa wataa ayuu ahaa ictiraafka iyo bal dadaalka loo maray ka sheekeynaya ayuu ahaa waxaa jiray madaxweynahan qaranka jamhuuriyadda somalilan hadda talada dalka haya ee ku guuleystay shacabka somalilan ay u codeeyeen 50% waqtigii ololaha ku jiray gabayo aad u marisay oo sidoo kale aad uga hoga tusaaleysay markuu dalka qabtana sidoo beddelka u hagi doono bal gabaygaasaan isaga jeclaan lahayn inaad ummadda usoo bandhigto waxay ahayd halkan intaan ololaha baa la gelin bahayd maruu waddanka ku marayey uu dhowr gobolladan bariga soo booqday madaxweynahan iminka jamhuuriyadda somalilan oo markaa guddoomiye xisbiga ahaa muuse biixi cabdi marka maalintaana waa la yeedho waxa lagu yidhi maxaad odhan lahayd munaasabadii markaa khayriyadda lagu qabtay gobolkan saraar marka waxaan kasoo sheekayda kulmiye iyo waxqabadkiisii iyo sida xaaladdu ahayd iyo halka maanta waxay dee bulshadu sida isagana ula diyaartay inay codka maanta bal isna aynu siiso iyo dafriintaynu kaga tegayno waxaa la yidhaahdaa hormuud waxay bulsho heer sare iyo horumar ku tiigsataa markay ishanooniso gundaa ka heshiisee iyadu ishabaysee wixii halis keenaya cadaawo hoy la dhaho waxay qarannimo hantaan markay madaxay hubtiyo hoggaan wacan doorata alla ilaahay hodantinimo hidiyo dhaqankeenni hore dhaqaalaha heerka gaadhay hab wacan iyo shaqa hufnaan hanaankii dowladnimada hormuud kulmiya u ahaaye dadkuna ka halmaami maayo halgamay muusow hogaami halkaana kasii wada hawsha ilaa halgankiiyo hadeer habkiiyo himilada fogaatay habkiiyo helimada fogaatay bulshadu mid halaysa maaha codkana way kuu hureene halgamay muusow hogaami halkaana kasii wada hawsha abwaan dad badan waxay isweydiin karaan abwaanku talow magabyada dhaqanka iyo ku saabsan arrimaha nabadun buu ka hadlaa mise mararka qaarkood arrimaha kale dee abwaanku kale meelo badan wax ka eegaay arrimaha jacaylka iyaga marna ma isku dayday iyo horta jacaylka iskuma fiicnin oo waxaan isugu fiicnay barigii hore waxa la oran jiray hebel gabadh buu doonay waxa soo dhaqan baynu lahayno de gaara waxaan leeyahay anigu iskuma naaficin laakiin sida dareenka bulshada aad kula nooshahay marba meel ku nooshahay baad meel kula nooshahay la qaybsanaysa waxa jirtay waqti in bayimi hogini waxaan jecelahay buu gabadha ma arag buu waan u wada hadalaa gabadhu dhaafsan tahay marka waxaan doonayaa buu inaan fariin aan u diro sidaan ku sheegay dhaqankaygii marka halka heesman ka sameeyay dhaqankii uun baan geedi socodkaygu waa dhaqankii dadkani lahaa bal in dhaqankii la isku dayo bal in dhaqankii dadka dib loogu celiyo marka heesman ka sameeyay aan ku soo qaadanayo dhaqankii iyo dee dhulkii oo anigu waaba wax ku amaanay maayo waxyaalahan imka dadkan wax ku amaanay dibal dhaqankii iyo dhulkii waxaan ku amaanayo iyo fardihii iyo wax la soo qaadan jiray magaciidu waqal sayr mawida cayn sabaradeedii inta uu saraar helay miiraalihii sugay maygii ku suuxsaday miiraarana wax la yahay roobka barqada daa marka roobka mayga dhaafo dhulkii kala sareeyay baliyadii intuu sumay soconaya daadkii oo beeshu soonaha wada taala sabado saxal iyo dib lagu hayn martii soo carowdiya sabiga iyo mudana lagu soo racaana sixintuna guriya taal dhulka sabin barwaaqa ma ogtahay sulaaqay suuradaada weeye inaad ila simanta siradkii hargeysiyo tirig meel la saariyo saar baxay lamoodii hadda saaka maqan tahay nafta waan sabaya saadala wacan yaadna saadi khayrkii hada waa saadal martay maqan tahay yaa sidii geeyo samalaho guriye samo ama geeyo samalaho guriye samo dhex joogto nin sandalaad li saacido midabkeedu sugul yahay xamar sul madooba qurux saamigeediyo sadka ay ku leedahay ishu aanay suurayn ma ogtahay sulaaqay inaad diila sigan tahay siradka hargeysiya tirig meel la saariya saar baxay lamoodii haddaad saaka maqan tahay nafta waan sabaya saadala wacaniyo adna saadi kharki abwaan sidoo kale waxaa jiray isaguna gabay kale oo la yidhaahdo dugsi aad kaga sheekeynaysay wadaniyadda iyo badadku sida ay u arkaan wadaniyadda maxay ahaatay sida ku dhaqmi lahaayeen bal gabayga wadaniyadana inaad noo soo martaan ka codsan tixdan dugsi baa la yidhaahdaa iyaduna waxay ka hadlaysaa beriyo dambe iyaduna waxay ahayd 18 May 2016
هذه يجري عليها وقابلسناها الصومالية وهذا الكيو حاسو دبنا طلع إن كاسون بالشيء قالوا هذا موضوع إن الصومالي لان دينا مقارنة أنا دعته سهنا بربر أي ده هي رساريا مركا واحد تنينا أي موجينيسا إن نين إلى سكوك أبتاي يونين وحويد هوست وحكوا إن أي الصومالي لان ميت صون نقونا يسوقون يسوتها كذا كصون نقونا يسا إن أنا أهين تذكر يو دولة نمدة يدنا أي مال مرتي يعرف كتمرد الصومالي haddii cid kasta deeq-bixiyaal iyo dadka loo xidhaadiyay haddii cid kasta ay wax weey waajibka ay leedahay xaqeeda Soomaaliland siin weydana Soomaaliland inay isku filaatay waan u baahnayn cidiisa u baahan xaqeeda siinaysa ay u baahan tahay marka isaguna waa sidan mar hore aanu dalabno nin kastaba dulgeynay maxaa daday warkay ama tuuka daba maro ama doqon ha saacido ama duulal jaan iyo diblomaasiyiin kala daaha ha saareen اعتراف dalkayga hadii caalamka ay ku dilaacin waayeen hadii ay kun dayro anaguna kun dayrood kuman hadii ay kun dayrood kumanaan diraacood kuman sano la daba maro wad garan karaysaa inta laagtay tiradaas dadku iyagu midnimadii dadka hadii ay kun dayrood kumanaan diraacood kuman sano la daba maro dadka iyagu midnimadiyo qarannimadan dihaatiyo calankoodan dooga dawladda ay samaysteen marka daalimayaan dardarta iyo xurimadaan u dabaaldegayna hadduu diido reer Yurub caalamkuba dareeraan annaguna dan kama lihin halkii lagu duudsiyay la dulmiyay xaqaygii dayartiya agoomaha dabka miidhan lagu shiday dib u eegi maayaan nin dareen qabo samir nin ildabayado toos cid kasto danaysi hanadiisa koonfuri eray kalena waa dug Somaliland dahab deeq Allah ku laabdan hadana cid daba gelin Somaliland dahab deeq Allah ku laabdan hadana cid daba gelin kun dabeecadoodo dunidu sinayn baa daayay nooga dhig hibo maalka noo dareere dalawada irmaaniyo tamarka iyo caanaha laga wada durduurtiyo looda dacasha dheeriyo dulku malabla ariyo farda lagu dakeeyo inta duurka joogtiyo maalkan dugsanaya aradkayga diine shidaalkii daf yahay dahabkii ku quban yahay durdurada biyaha iyo dalaga iyo beeraha ninkii doonaya helo isagaan ku daalayn badda ducaha weyne kalluunki daf yahay cambarkii dul yaaliyo marka la isku wada daro khayraadkan dugsanaya dadkaygaas jecele tacaalada ay haystee isu wada duceeye danta guud ka samane wixii uu danqaab galo degdeg lagu dhameeyo duqeyda iyo odayada khayraadkan duqeyda iyo odayada samahan dugsanaya dacalada xuduudaha ragga dayrka xidhaye cadawgana la diriire qarannimada daafaca cudud baan dugsanaya dawladnimo cadliyaho dardar iyo wax qabadlo shacabkana la dariso dastuur lagu dadaalo laga jiray daloolo hadba kii la doorbido dalka loogu dhiibiyo midnimo dugsanaya daliilkiisa shareecada daay nagu manaystiyo muslimnimadu waa dahab daliilkiisa shareecada daay nagu manaystiyo rabbi baan dugsanaya aad iyo aad u mahadsan yahay abwaan maxamed xuseen jaamac oo ku magac dheer abwaan toosiye oo maanta barnaamijkeena dhalinyarada iyo halabuurka aanu ku soo qaadanay gaar ahaana magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland abwaan aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigan qaaliga aad noo soo hortay aad baad mahadsantahay